بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا. اللهم طوي لنا البعد. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. hadda waxaanu gaadhnay xafiiska shirkadda Sahal ay ku leedahay magaalada Gabiley. Hargeysa ilaa Gabiley waxay isu jiraan 50 kilomitir. Gaadhiguna wuxuu noola socday qiyaastii 45 mirir. Kani waa masjidka Imaaraadka ee magaalada Gabiley. walaalayaal waxaanu rabbigeena ugu mahadnaqaynaa ammaanka iyo nabadda uu ina siiyey. waxaanu kaloo ugu mahadnaqaynaa laamiyada iyo waxyaabaha fududeynaya safarka Ilaahay inoogu deeqay. markaan safraba waxaan xasuustaa wajacalnaa baynahum wa bayna alqura allatii baaraknaa fiihaa quran daahirah waqadarnaa fiiha asayr siiruu fiihaa layaaliya wa ayaaman aaminiin. nicmooyinkii Ilaahay reer Saba uu siiyey waxaa ka mid ahaa inuu dhulkooda isu dhoweeyey, masaafada ay soconayaanna uu ka yeelay mid xadidan. Ilaahay wuxuu ku yidhi maalmo iyo habeenna socda idinkoo nabad qaba. innagu taa mid ka weyn ayaynu haysannaa. waxaynu soconaynaa saacado iyo daqiiqado innagoo ammaan iyo nicmo ku raaxaysanayna. oo wax Ilaahay looga mahadnaqo. la in shakartum la aziidannakum. ilaahayow waanu ku mahadnaqnay noo ziyaadi. dhismayaashan aad arkaysaana waa magaalada Boorame. Hargeysa ilaa Boorame waxay isu jiraan 110 kilomitir. gaadhigu markuu si dhexdhexaad u soconayo wuxuu ku gaadhayaa 2 saacadood.